gobolka waqooyi bari Kenya waa mid inta badan leh dhul qalalan iyo cimilad kulul taasoo caqabad ku noqon karta beerashada qaar ka mid ah dalagyada. Si kastaba ha ahaatee, haddii loo helo biyo ku filan iyo farsamo beereed casri ah, gobolkan wuxuu noqon karaa meel ku habboon dalagyo kala duwan oo waxtar leh. Inkastoo ay bulshada deegaanku ay si weyn ugu howlan yihiin ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha, haddana waxaa sii kordhaya tirada beeraleyda ku howlan soo saarista dalagyada waxtar u leh bulshada. Sisinta waa mid ka mid ah dalagyada ugu muhiimsan ee lagu beero gobolka, gaar ahaan ismaamulka Mandera. Waa dalag si wanaagsan ugu koro dhulka kulul iyo kuwa aan roobka badan lahayn, taasoo ka dhigaysa xalka ugu habboon ee wax soo saarka dhulka gobolka. Beeraleyda Mandera waa dad dadaal badan, waxayna mar walba raadiyaan dalagyo ay ka heli karaan qarash wanaagsan oo nolol maalmeedkooda kor u qaada. Waxay tijaabiyaan noocyo kala duwan oo dalag ah si ay u fahmaan kuwa ugu wanaagsan ee la jaanqaadi kara deegaanka suuqna leh. Dalagga sisinta waxa uu noqday mid ay beeraleydu si gaar ah u daneeyaan maadaama uu leeyahay faa'iidooyin dhaqaale oo joogto ah, isticmaal nafci leh sida saliidda cuntada iyo suuq ballaaran. Waxaa la dhahaa Nuur Aadan Cumar, waxaan ahay reer Areesa, waxaan ahay dadkii beeraleyda oo dhinaca beeraha ku soo takhasusay, oo haday simsim tahay iyo haday galley tahay iyo haday yaanyo tahay dhinaca beeraha aad tabcatooy u ah. Waxaan ahay sisin tabcana beeroley, waxaan ahnay saliid waxay ku jirtaa dhulkeena, wixii la cunayo dhamaan dhulkeena ay ku jiraan, dhulkaan wax ka soo saaranaan dhahnay. Horta bahasha la dhahaa simsim, haddii dadka dawladda Kenya ahaa iyo shacabkeeda ahaa iyo dahaba waxaa la dhahaa bahalka xashiishka la dhahaa ugu qaalisan oo ugu lacag badan la dhahaa. Ayada bahalkaas xashiishka la meel joogtaa lacag ahaan markii la dhaha. Ninkaas Ilaahay fahansiiyey sababtoo ah ayadoo mire waa lacag, ayadoo saliid waa lacag, ayadoo maankaal waa lacag. Saddexda shay lacag ay ku tahay. Waxaas wax jira maaha saliidan oo oilke. Bahashan waa nafaqa. Horta daawo ahaan hadaa la dhahaa sinsinta ayada nafteeda waa saliideeda waa daawo. Waxay daawo ku tahay hataa maaladan markii lagu daraa raashinka, markii lagu darsada raashinkan sinsintan gaas ma kicisa, saliidan kalena hadda gaasku way kicinaysaa. Dheef ahaanna haddii maanta hal saddexle oo saliid caddeey iyo hal saddexle oo saliidan sinsim haddaa soo gadata, ilmahaada intay sinsimtaas haystaan way ka muuqanaysaa, laakiin midaan kama muuqanaysa. naagaha umusha naagaha umusha dadkayna haddaan oo beeroleyda waxaan dhahnaa naagtaada markay umusho ama wan u qal ama sinsin saddexle u keen, midaan kale maa loo keena caloosha ay dhaqaysaa oo naag uma leh wana loo qalay fuudkiisa la waraabi mala subkiisa la waraabi. halko saddexle in neefka erag u weyn oo maanta 10 la soo gada yaa naagtaas halka saddexla u nafaqo badan oo saas ay nafaqo u tahay. qofka markaas geed dile geedaha soo bixi waay odayaalku waxayna dhigi jireen waxa lagu soo bixiyaa simsim, waa la waraabinaa qofku waa cabba, markaas cabba geedkaas waa soo baxa ku daahima. odayaalka saas ay noogu sheekayni jireen, waana ku aragnay, waa ku wanaagsan tahay. Sisintu waa dalag waxtar leh oo faa'iidooyin badan u leh beeraleyda iyo bulshada guud ahaan. Waa mid la jaanqaadi kara deegaanka Mandera iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari Kenya haddii loo helo taageero farsamo, biyo iyo suuq. Sisintu waxay noqon kartaa mid wax ka bedeli karta nolosha beeraleyda deegaanka.